su'aasha aad i weydiiseen haddii aan isku dayo jawaabteeda marka hore inta aanan ka jawaabin waxaan doonayaa inaan ka hadlo sidii habsami socodkii habsami wadaagii wanaagsanaa ee ay doorashadu inoogu bilaabantay inoogu dhamaatay marka koowaad waxaanu mahad celinayaa guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee si hagarliya u qabatay doorashadii cadaaladda hufnaanta moron la'aanta khilaaf la'aanta waxa kale oo markale u mahad celinayaa ciidanka qalabka sida ee dhammaan ka kooban booliska militariga ciidamada kala duwan sida hagarliida ee ay ugu bixiyeen naftoodii tayeyntoodii wixii la galay ay dib dalka ugu qabteen waxa kale oo mahadnaqayaa taliyaha booliska sida xirfadda leh ee uu tayeeyay sidii ay uga howlgeli lahaayeen ciidanka qaranka Soomaaliland noocyadooda kala duwan sida boolisku iyo gaadiidka tayada leh iyo warskaarsiinta tayada leh iyo da'yarta xooggan ee ciidanka uu qaatay sida hufan ay hawsha u qabteen marka xiga intaas oo dhaniba halkay ka soo unkameen ay ka soo biyo cabeen ayaan u sii mahad celinayaa oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inna barayna doorasho aan shisheeye inaga caawinin dalka gudihiisu dakhligeedu ka soo hoyday in dalka wax loogu qaban karo ummadana lagu dooran karo doorashana ka dhici karto inta dabadeed markaan dib ugu soo noqdo su'aalaha kooban ee aad weydiiseen waa runo horay baan u saadaalinay isbedeladan maanta dhacay xaaladahan maanta dhacay horeyna waan idinkaga xog waramay dibna waad u arki doontaan saadaalada la mid ah haddaan dib ugu noqdo 2005 bishii 8aad 23keedii anigoo jooga masaajidka Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa waxaan nidhi war Muuse oo salaad halkan ugu tukanay salaad maghrib yaan kadib markaan dibadda u soo baxnay hadallo iyo dhawaaqyo afka madaxweyne Muuse aan ka maqlayay waxaan ka dhadhansaday kana saadaalsaday waqtiga soo socday inuu madaxweynaha biri noqon doono dad badan baa igula yaabanaa waxa kale oo idin saadaalin jiray oo aad hadda ka hor iga hayseen in 2002 sidii ay wax u dhaceen doorashooyinka degmooyinka Soomaaliland ay u dhici doonaan maantana waad aragteen iyo kuwa baarlamaankuba sidii ay 2005 wax u dhaceen inay maantana wax u dhaceen si gaar ah haddaan soo socdo oo degmada Boorama aan u imaado degmada Boorama labada nin ee maanta loo doortay inay duqa magaalada duqa ku-xigeenka magaalada ay noqdaan waa rag aan oran karo marka laga yimaado waxyaabo badan ay dadku xeeriyaan aanu si gaar ah u garanayo labadaba qalin iyo aanu ku kulannay madal wax barasho rag la isku aamini karayo rag la isku halayn karayo rag lagu tiirsan karayo rag dhanka ay ka xigaan ay rag ka xigaan ay tiir ka xigaan waxaan hubaa inay Boorama dhisi doonaan waxaan kaloon hubaa degmooyinka kale ee Soomaaliland inaan oran karo hal la isku daydo talada wanaagsan hal la isaga daydo wax qabadka hal la isaga daydo isku tanaasulka hal la isaga daydo isku hambaliyeynta hal la isaga daydo wax qabadka dalka kula doortay iyo ku aan la dooraninba bulshooyinka Soomaaliland bay kamid ahaayeen waxaan bulshada leeyahay xanafta siyaasadaha in aan dadka raad aanay ku yeelanin haddaan mar labaad dib ugu noqdo waxaan xasuustaa oo labadan xubnood ee maanta magaalada Boorama laga doortay xasuusiyaan 93 ilaa 2003 Axmed Xuseen oo wuxuu ka ahaa wasiir si kale markaan u eego haddaan khaldanayn taariikhda waa layla yaqaanaa wuxuu maayar ka ahaa dawlad magaalada Hargeysa muddo kooban maantana inanku adeerka u haba magaalada Boorama gudoomiye ku-xigeenka waxa kale oo aad ula sii dhacsanahay 2002 oo Cabdiraxmaan Sheekh Cumar loo doortay maayar in maantana la doorto inaan soo galaasnahay Axmed Warsame Maxamed Baradho Maxamed Axmed Warsame waxaan uga soo qaadanayaa in suugeynta taariikhaha iyo shabaahayaan waxaan leeyahay dadka aad ka soo jeedaan in magacadooda aan soo tilmaamay waxay ahaayeen dad tirsan idinkuna sida ay kuwaasi u tirsanaayeen inaad u tirsanaataan oo dalkee dadka baad u shaqaysaan ayaan marka koowaad idin ka codsanaynaa bulshaduna way idin sugaysay wayna idin saadaalinaysay waatana waa timaadeen fadka saaro fooraha ka bilig dhawda ayaan idin leeyahay
haddii aan dib ugu noqdo maayarka magaalada Hargeysa horeyna waan uga hadlay laakiin imika waa xanuun baan milicsanayaa dadku qofku inuu is ogaado ama la xasuusiyo taariikhda Cabdikariin Axmed Mooge waxaan leeyahay odayga aabbaha Allah u naxariistee nin tirsan buu ahaa adigana waxaanu ka rajaynaynaa sidii odayga aabbaha uu tirsanaa Axmed Mooge Liibaan ku sii fogaan maayo hadalkan ku sii tigaali maaye inaad adiguna u tirsanaato inaad maxaan rahdayay indhaha iyo muuqaalka la idinka filanayo indhaha dadka inaad buuxisaan dhagaha dadka inaad kasbataan qulubta dadka inaad degtaan dhammaan si guudna waxaan u leeyahay dhammaan ku kasto deegaan ka soo baxay iyo ku kasto baarlamaan ku soo baxayba intaas ayaan ku soo koobayaa su'aalaha kooban ee aad weydiiseen wixii kale aad weydiin kartaana waan isku dayayaa inaan ka jawaabo waanad mahadsantihiin iyo mar kaleba su'aashaad weydiisay ku saabsan xildhibaan Barkad Jaamac Batuun si kooban iyo si guudba lagaba hadalbe anu wuxuu baan ku soo koobayaa 60 sano ka hor sanduuqa ugu codka badan leh sida aan maqlay ee 26 Juun ku yaala qooyiga masaajidka Ibraahim ku yaala inuu 60 sano ka hor xildhibaan caarsha kaga soo baxay oo isla isagu uu ka turjumay oo isla isaguna isku haybahaayeen waxaan oran karaa inuu taariikhu عادت على نفسها لنفسها من نفسها تيتيدو مانتنا وركا إن مانتنا كوبي اللي حدن سنة كهر إسلا قوبتي إسلا دقمدي إسلا مرودي تشاح مر لبعضو كصوب بحو أوجمنا نقول مايسة وحن أورن كرنا ضرور عراتي عمر والبد هذا إن النقطة دمان ذلك جودي سي دافيه سيد دقموين كيسبة تايك والله مديبه أي كصوب بحدوانان warkhadna waxaan leeyahay horeyna lagu yiri maantana anagu ugu daraya dhammaan si kala hadaan dhiga 28 xubnood iyo 20 degmo Soomaaliland xildhibaanada laga soo doortay xilka aad qaadeen dhulkan aan ku soconiyo samadu ka culus yahay dhulkan aan ku soconiyo samadu ka culus yahay yoonu sibiq idinku galin maanta waa maalin siyaasad iyo suugaanta iyo siyaasaduna waxyaabaha aynu u adeegsano wartabinteena iyo warqaadkeena iyo wax isku sheegiinaba su'aashaas taas baan kaga jawaabayaa